shirkani jaraa'id oo ay maanta si wada jir ay u qabteen xiriirka isboortiga gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay maanta cambaareen iyo eedayn dusha uga tooreen xiriirka Olombikada dalka Soomaaliya ka oo saddexdii bishan aan ku guda jirno ee sanadka cusub doortay madaxda Olombikada dalka Soomaaliya ayagoona sheegay inaysan la socon doorashada isla markaana ay xaq u lahaayeen in codkooda iyo waliba fikradooda ay ka dhiibtaan waxa ayna sheegeen xiriirka isboortiga gobolka Jubbada Hoose inaysan ku qanacsaneen xiriirkan cusub ee la doortay ayagoona xiriirka isboortiga gobolka Jubbada Hoose ay sidoo kale ay sheegeen tani intii burburkii dawladii dhexe ee dalka Soomaaliya xuquuqdii isboortiga gobolka Jubbada Hoose ay soo dhaafi laadahay caasimadda Muqdisho Cabdi Xasan Siyax Sanjo oo ah gudoomiyaha Olombikada gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu sheegay in xuquuqdii la garab mariyay ayna taa u dul qaadan doonin hadii ay yihiin xiriirka Olombikada gobolka Jubbada Hoose in la doortay gudoomiye Olombikada Soomaaliyeed marka aad iyo aad baan aga xumaanay arintaas inta waxay nagu qaadatay inaan jiifan weyna laba habeen annaga baada isboortiga waxaan ogeysiinaynaa gobolka Jubbada Hoose waad garanaysiin waa hooyada kubadda cagta 8 koob waxaan ku soo qaadanay aniga inaan la hadlayo 8na waxaan galnay final waa aad iyo aad sidoo kale waxaa sidaas la mid ah cambaareen dusha uga tooray xiriirka isboortiga dalka Soomaaliya gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose Cabdullaahi Ducaale Big waxaa dhacday Muqdisho inay samaysatay maamul ayada kaligeed u gaar ah oo Soomaaliya dhan ka dhaxayso taas ayada ahna ma yeelin anaga mana aqbalino waan qaadacnay haddii la rabo in gobolada Soomaaliya tala laga geliyo anaga waxaan nahay hooyadii gobolka Jubbada Hoose waxaan nahay hooyadii kubadda cagta ee Soomaaliya kan waa waji cusub oo Olombikadu ay hadda la timid annaga haddaan nahay xiriirada gobolka Jubbada Hoose Olombikada waa qaadacnay waan ka soo horjeednaa mana aqbaleyno gudoomiyaha sida uu sheegayna haddii ay ku sii socdaan maamul xumada iyo sharci darrada iyo dhaqan xumada xamar ee sportska ay ka wadaan Soomaaliya annaga kalsoonida waan kala noqonaynaa gaaran ugu inna waxaana filayaa in Soomaaliya 8 gobol ama 6 gobol koonfurta markay u yaraato aan la go'i doono oo aan gaar isku maamuli doono haddii ay sameeyaan doorasho caam ah oo loo wada dhan yahay oo gobolada Soomaaliya oo ay ka soo wada qaybgalaana waa sida loo baahan yahay waa sida sharciga Olombikada uu yahay in doorasho guud si caam ah qof walba oo shakhsi oo Soomaaliyana uu isku soo sharaxo xiriir Olombikada iyo xiriirada kale oo dhanba in la wada doorto laakiin ma ahan maalin walba in xamar aniga wax noo yeeriso ma ogolaanayno mana ka aqbalayno wabillahi tawfiiq dhanka kalena waxa goobta shirka jaraa'id ka socday ka hadlay haliyay Muqtaar Xaaji Jaamac oo ah ciyaaryahankii ugu horeeyay ee dhaliyay goolkii ugu horeeyay ee furitaanka ciyaaraha gobolada dalka Soomaaliya sanadu markay ahayd 1971 asagoona sheegay inaysan ku qanacsaneen doorashadan cusub ee la sameeyay saddexdii bishan ee ku guda jirno ee lagu doortay madaxda Olombikada dalka Soomaaliya si kastaba xaal ku ahaaday gobolka Jubbada Hoose waa gobol caan ku ah isboortiga ahna gobolka ugu koobabka badan ee hantay koobabkii gobolada dalka loo qaban jiray ayadoona la xasuusto in gobolka Jubbada Hoose ciyaaryahannadoodii ay soo hanteen 8 koob oo ah koobabkii loo qaban jiray gobolada dalka xilligii ay jirtay dawladii dhexe ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Caynti Universal TV Kismaayo.